السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaashiina Sucaad waxaan ahay hooyo wadan aan ilmaha lagu garaaci karin joogto ilmahayga ma garaaci kari ma adbisan kari ilmahaygana madax adeegay ka qaadeen garaacitaan la'aanta maxaan sameeyaa cunuga la garaacin cunug adbiisan ma ahan mana tarbiyeyn karo ma la adbin karo maxaan sameeyaa cunugayga si ku adbiyaa cunugayga madax adeegoo qabaa waxaan u dira ma maqlo wax kasta murun oo ka keenaa wax akhlaaqi adaab aan bari kara ma jirto garaacitaankii aan isticmaali lahaa aniga la igu soo tarbiyay aniga waxa iga soo dhigay qof waxa iga dhigay qof oo muxtaram ah waxa waaye garaacitaanka la soo garaacay aniga waalidiintay way soo rabiyeen si fiican ay ii soo barbaariyeen way i garaaceen way adbiyeen laakiin kuwayga ma adbisan kari saameyn kuwayga ma adbisan kari ilmahayga way iga dayacsan yihiin ma garaaci kari maxaan sameeyaa seen ku caawiyaa maxaa kaloo shaqaynaya garaacitaan aan ahayn mise waxaan ahay hooyo joogto meel ilmaha lagu garaaci karo mise okay ku ah ilmaheeda inay garaacdo aaminsan laakiin sa u garaacay waa ka daali madax adeeg ma ahane natiijo uma jeedi markaan garaaco isla wixiyaa maanta marar badan aan ku garaaco cunugii wax kama barto garaacitaankii madax adeegnimadii weli way socotaa maxaan sameeyaa maxaan istaaga ahay maxaan sameeyaa maxaa igula tali lahayd videoga insha Allah su-aashaas maanta aan ka jawaabaa iyo akhtaada waalidiinta ay ku dhacaan oo sabab u noqoto madax adeega ilmaha madax adeegooda waxa keeno mise waxa qayb kaga noqdo waa afartan khata waxyaabo ka badan laga yaabo laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa afar khata oo sabab u noqon karto mise saameyn ku sameyn karto madax adeega ilmaha afartan khata markaan fahno videoga dambe insha Allah waxaan ka hadlaynaa sida aan uga hortagi lahayn mise sida ilmaha aan ku caawin lahayn aan uga dhigi lahayn ilmo oo hadalkeena maqlaan insha Allah oo baariyaal ah الله نو بركة ilmaha so videogan hadaa ka heshid mise wax ka faa'iidid please la share gareey community please la share gareey waxa muhiim ah in message-kayga gaaro dad badan oo ay ka faa'iidaan waxa meesha u soo gal ma aha inaan shuhro iyo mise lacag aan ka sameeyo alxamdulillah waan shaqaystaa busy ahay adduunkayga ayga badan ilmahayga iyo maan ruux ugu dhigaa waa shaqeeyaa hooyo busy ah laakiin waxa inta u soo gal waxa way have a message aan qabaa inaan deliver gareeyo oo community wax ugu faa'iideeyo waxa aniga aan fahmay inaan dadkeena aan gaarsiiyo maadaama u jeedo gap ka jiro parenting Somali community parenting aan dib ugu laabano waalidnimada iyo waalidiinta videoga channelkaygan wuxuu xooga saaraya waxa waaye dhiirigelinta waalidiinta la shaqeynta waalidiinta iyo tarbiyada ciyaalka so insha Allah wax ka faa'iideen please la share gareeyo community-ga jazakumullahu khair so videoga dan gudaha u galno waxa waaye afarta khata amase khaladka weyn oo ugu weyn oo waalidiinta ay ku dhacaan oo na saameyso oo ka imaado madax adeeg ilmaha waxa waaye garaacitaanka waataan soo sheegnay oo aan ku soo bilaabay garaacitaanka uma garaacitaanka wuxuu keenaa ilmaha inay madax adeega ka sii qaadaan garaacitaanka waxaa la ogaaday in faa'iido leedahay faa'iido yar laga heli karo short term marka cuniga garaacdeed isla markaas waxaa ka arkay cuniga inuu hadalkaaga maqlo oo wuxuu ku garaacday oo istaajiyo laakiin taas ma ahan in cunigii 10 ka bartay garaacitaankaas oo waxaas damba sameynaynin mise ay saameyn positive ah saameyn fiican ay ku lahaatay waxaa la arkay garaacitaanka daraasooyin la daraaseeyay in saameyn xun ay leedahay saameyntaasna ayna soo bixin markaas ilmaha markay yirihiin lagama arko saameynta ay leedahay oo side effect-ga laakiin waxaa laga arkaa markay teenager noqdaan iyo markay ay weynaadaan waxaa soo baxo dhibaatooyinkii saameynta khaladooyinka aan hadda ka hadlayna khaladka oo garaacitaanka iyo saddexda khalad kalaba dhibaatooyinkooda badanaa waxay soo baxdaa markay ilmaha weynaadaana la arkaa waa mar wax laga qabo karin waxyaabihiina wax weyn laga qabo karin wax waa la bedeli karaa of course every time wax waa la qabo karaa laakiin waa mar khalad waqti badan lagu soo jiray oo saameyn weyn ku lahaatay cuniga noloshiisa so garaacitaanka ilmaha isla markaas natiijo yar oo ku siinaa cuniga wax hadalkaa waa maqlaa laakiin saameyntiisa ka badan relationship-ka urun gareeya ilmihii iyo waalidka xiriirka uu haleeyaa xiriirka ka dhaxay lahaa xiriirkii oo daciifiya xiriirkii wuxuu ka dhigaa xiriir oo xaasidnimo iyo xiriir oo ku jirto cadaawnimo iyo xiriir oo ku jirto naxariis la'aan oo ka dhigaa because cunigu uma arko qof garaaca inuu qof jecel yahay mise qof naxariis u qaado yahay ma dareemayo cunugii waxa laga inuu revenge la imaado wax revenge la dhahay ilmaha inuu waa ka aarsana oo kale saas ay ugu ariga xanuunkan ay ugu sameeyay anigana hadalkaaga ma maqlay
waa ku dhibaa intaan ku dhibi karo because adigaba iima naxariisinoosid iima daniinoosid oo ima fahansaneed so cunugii waxaa laga yaabaa inuu asna soo kugu dhibi lahaa oo raadiyo oo revenge oo sameeyo oo adigiina garaacitaankii badisid cunugiina madax adeegii badiyo oo labadii marka isfahankii meesha iyo naxariistii iyo cilaaqadii iyo saameyntii cunuga aan ku saameyn lahayd ee meesha ka baxdo because relationshipkiiba ma jiraay waxa ugu weyn cunuga ugu caawiyin waxaa waaye waalidkiis ahaa mise qof noloshiis ku jir ahaa waxaa waaye relationship oo positive la sameeyo cunuga markaa relationship xiriir fiican la qabtid markaas unaa cunugaas tarbiyeyn kartaa markaas unaa cunugaas akhlaaqi adaab bari kartaa markaas unaa cunugaas wax ka qaadan karaa oo wax kaa qaadan karaa oo benefitkiis ah laakiin haddaa relationship jirin wax kasta hadaa barto robot ma aysan human waa emotional qabaa cunuga waa bini aadan oo emotional leh ma aha computer oo waxaa ku shubid iska qaadanaya emotionkiis waxay la socotaa relationshipkaas relationship waxay ka caawinay maskaxdiisa ee wixii uu hayay inay maskaxdiisa ay furee cunugii asaab wuxuu u sameynaa inuu ku raalligeliyo u sameynaa wuxuu u sameynaa inuu wuxuu ku arkaa qof dayasho mudan qof naxariis badan qof oo dantiisa tixgelinaya markaas wax ka qaadan laakiin qof oo ku garaacay badan haddii ka dhaadhacsiisid xataa ilmaha qaar waxaa laga dhaadhacsiyaa waa ku garaaca because I love you waa ku jecelahay waa ku kargaraynaya waxaa rabaa inaa cunug fiican kaa dhigo saasaan ku garaacayo ilmaha qaar laga dhaadhacsiyaa laakiin even kuwaas saas laga dhaadhacsiya waxaa la arkay inayna helbagaraynin markay ay weynaadaan iyagana dangerous ku noqdaan ay relationship oo maybe abusive relationship galaan ay aaminsanaan qofku jecel wuu ku garaaca mise qofku ku jecel wuu ku adbeynaa mise qofku ku jecel cunfi wuu kugu sameynaa because wuu biismi jecel oo haddana uu kugu xumeynaa ay hadhow relationshipkooda xataa ay weynaadaan ay relationship oo more la abuse garayna ay ku jiraan saameyntaas la arkay ilmahaas soo gaarto so please ilmaha aan ka ilaalino garaacitaanka faa'iido kuma jirto طريقين كلا strategies كلا method كلا oo dadkan oo la daraaseeyo la arkay oo nabi maxamed laga soo gaaray before anybody else alayhi salatu wasalam aan taabicno waxa aan fiirsanay wax buwaagta laga soo qoray gaalada hadda arkeen leh ma aan waxa aan parenting markaa fiirsaday hadda qof walba siirada nabiga si fiican u daraaseeyo oo arkay nabiga ilmaha soo la macaamiloon jiray in xariisto yaa gulaam markuu dhahay ilmaha markuu wax akhtadiisa saxa iyo there is a lot of hadith oo aan ka barakono nabigeena aswaha noo noqdo parentinimadeena nabiga aan ka barano maadaama nabiga laga soo warinin garaacitaan inuu use gareeyay for parenting we should reconsider anagana aan dib iskugu laaban aan aragno garaacitaankan inuuna faa'iido lahayn garaacitaanka wuxuu kugu kalifaa ka waalid in adiga nervous noqotid oo emotionkaaga mar walba xanaaqaaga zaid noqdo because markaa wax garaacay physically you have to be in a angry stage emotionkaaga qof xanaaqa ku jira adoo faraxsan oo qoslay wax ma garaacay sidii leen adoo xanaaqsan oo nervous ah oo kacsan wax garaacay taasoo marka ay kugu kalifaa inaa mar walba cunugii dhibsatid inaa xanaaqaaga zaid noqdo oo ilmihii garaacdid oo garaacitaankii la qabsatid oo hadhow adigii ma benefisaysid adoon wax garaacin mar walba waxaa rabtaa marka ilmihii garaacdid waxaa dareemaya nafis so adigiina waxaa baar habid ku baranay oo habid oo kugu fiicneen ka waalid ahaan oo ilmihiina ruungareynaa adigii naftaada dhib kugu pressurekaas iyo xanaaqaas iyo garaacitaankaas balansigaas isticmaalay يعني والدكنا سامينه كله هي حريركنا سامينه كله هي تاس مركب ميل أسكت إنه إن شاء الله أنت أبودين أنا مسكوت تراي جرينه إن أسكت يرينه and then أسكت بابينه all together إن شاء الله so قرايتك مرمرة والحلقة إن مرمرة استعمالها for some people so it's your decision قرايتك لكن وإنهم قرايتان حتى صف الله هاي وحاول I don't advise أنيق لكن قرايتان كلا شيء oo la garaacay ma aha garaacitaanka hadda oo violence la garaacay ilmaha so garaacitaanna laguma garaaco ilmaha faa'iidana ma laha anyway anigu aad uga soo jeeda laakiin it's your personal choice I'm not here to argue but I'm only here inaan idin sheego waxyaabaha oo saameynta ay leedahay garaacitaanka so khaladka labaad oo waalidiinta ku dhacaan oo ilmaha madax adeega kusii kalifa sii zaa'idii waxaa waaye nagging in cuniga maanta dhan kusoo xasuusatid wixii dhahdeed samee saan samee like marada dhulka ka qaad
maradan dhulka ka qaad inuu ku maqlin oo kala u maleysaa laakiin wuu ku maqlo cunugii laakiin adigii waxa u baranaya la qabsanaya ku celceliska wixii maanta xasuusin quraankaaga akhri cashirkan ka soo baxday cashirkii ma akhrisay homework ma qortay repeatedly nagging Allah maanta cunugii inuu ku dhibsado mas cunugii inuu hadalkaaga marka hadleebo already la maskaxdii waxay la qabsaneen he already knows qof walba ogay wixii hadalkaaga inuu naagii isku bedelaay wixii marka cunugii wuxuu sugaa ilaa 10 mar ugu celisid before wixii sameeynin waxaana la daraasay research waxay dhahday the more adiga waalid aad marka cunugaaga wax u dirtid hadda hal mar u dirtid oo 2 mar ku soo celisid oo mar saddexaad ku soo celisid ogaaw mar walba ku soo celisid natiijada hoos u socotaa inuu cunugaas waxa sameeyo it's going down yani the possibility inuu sameeyo hoos u socotaa so faa'iido ma keenayso hor wax leh si halayna naaginka repeating reminder so xasuusinta badan naaginka badan maanta ilmaha madax adeeg ay ku caawin marka cunug inuu la qabsado hadalka soo qaadin oo ku dhibsado hadalkaaga oo maskaxdiisa diyaar u noqoto qeyladaas iyo naaginkaas oo la qabso asna naaginkaas oo sameeyo dadka kale ku sameeyo ay naqareen taas aan iska ilaalino marka insha Allah tasaddexaad oo la xiriirta garaacitaanka waxa waaye tahdiidka garaacitaanka sometimes uu ka xanuun badan yahay because marka cuniga maanta hadidid mise marka cuniga maanta wuxuu dhibsanahay ku dhahdid waxa waaye waxa laga yaabaa ilmaha qaar garaac hal mar garaacitaanka u fiican way prefer graynayaan in adoona hadlin garaacdid oo xanuunkiisa physically ahaanka ay u qaataan then emotionally because hadallada dhahe emotionka more saameynay more xanuunka waxa laga yaabaa in cunuga xanuun oo hilmaamo laakiin ereyga dhahe ma hilmaamayo cunuga more maskaxda way sii degay wayna soo baxeen markuu weynaado so ereyada aan dhaheen ilmaha whether it's tahdiid abahagaan kugu sheegaa maanta dhan la hadidaay whether it's like waa ku garaaca haddaan saas samaysiyaa weylak maanta dhan haddaan saas waxaan kugu sameeya iska jira daadaada wixiina aada samaynaynin laakiin iska dhahlay tahay oo like tahdiida afka haddoo noqdo waxaa waaye ciidan wararkeeda leedahay because maanta cunugii safe ma dareemayo maanta dhan adoo lagu hadidaayo cunugii maanta dhan safe ma dareemayo maanta dhan waxaa waaye flyan wuxuu ku jiraa maskaxdiisa digtoonaawo ku jiraa hadda wax lagaa qaadaa hadda lagu hadidaa hadda time out lagu gelinaa time outka xataa ma fiicno tahdiidkoo soo galaa badan time wax kasta day bataan ma fiicno wax kasta day limad yihiin oo si fi habaysana u isticmaalay of course benefit way dhaqan karaan laakiin wax kasta day bataan damageka ka badanaya dan benefitka so time outka badan mise time outka ilmaha usii dheeray sida waqti badan maanta dhan time out gelisid cunugii isolation iyo avoidance iyo waxyaabo kaligiisa meesha dhan oo time outka waxaa la arkay ilmaha markay time out ku jiraan badanaa kama fakirayaan ma isdhahayaan time out la isoo geliyey maxaa sameeyey talow qalad dadka waalidiinta waxay ogaayaan inay cunuga reflection isku sameynayo oo isla hadlayo oo waqtigaas oo isqiimeynayo wuxuu sameeyey qaladkiisa wax ka baranayo laakiin waxaa la ogaaday ilmaha markay time out ku jiraan inay ciil like maxay sahaw fair ma ahan waxaa la igu sameeyey waa la iga gardarayhay wax si qaladaa la igu ciqaabooyaa feeling opposite inay maanta wax cilaaqadii adiga iyo cununkii cilaaqadiina ruungaraynaya lay ka fikirayaan ilmihii waxay ka fikirayaan inay isu arkaan in qodad oo fair aad ahayn in aboontaada isticmaalowsid inaa adiga aad maqlaynin so time outka badan time outka waqti dheer faa'iido ma keeno taasna waxay soo galaysaa tahdiidka time mise iPad-kaan kaa qaada cunugii maanta dhan waxyar doo sameeya oo ku hadisid wuxuu jecel yahay cunugaaga wuxuu jecel yahay toygiisa alaabtiisa mise gamekiisa oo adiga ogtahay wuxuu jecel yahay adoo maanta dhan waxaa jeceshaa lagu hadidayo haddaa waxyar qalad samaysid ilan ilmaha qalad way sameynayaan 24/7 waa ilmo they cannot be perfect ma naqanayaan waa ilmo waa akhta'dooda laakiin qalad walba ay sameeyaan haddii la dhahaa iPad-kaagaa luus garaysay gamekaagaa luus garaysay for a week tahdiid dheer waqti badan wixii ka qaadid xirmaan oo waqti dheer xirmaanka waqtiga dheer cuniga wuu give up garaynaa because waqtiga ku dheeraanaya wuxuu dareemaa inaad feelingkiisa raacinaynin ilmahan alaabtooda attached ay ku yihiin haddaa mar walba alaabtii ka qaaday they have to work 1 week ay sugayaan haddana markay helaan haddana qalad yar ay sameeyaan haddana alaabtii gamekii ka qaadid haddana they have to work for it cunugii marka give up oo sameynaa I don't care ay naqanaysa inuu islaho I don't care
inuu iska dhaadhacsiiyo aniga qof xuna ahay all the time in hadda punishment all the time ku jirsid waxaad isdhaadhacsinaysaa in adiga qof oo wax ka qaldan yihiin aad tahay mise qof oo deserve garaynaynin because maanta dhan qaladaas sameynaya maanta dhan punishmentaa lagu siinoyaa maanta dhan punishmentaa lagu sii wuxuu iska dhaadhacsiinaya oo maxaa iga qaldan maanta dhan aniga why qaladaad la ugu jiraa so punishmentiga badan waxay saameynaya cunugii inuu isdhaho aniga I don't care marka aniga qof xunaa ahaybo maxaa ma kala jecli haddaan maalinta dhan qalad ku jira qaladkii iska sameyna who cares iPadna ma rabay جبنا مربي أنا قلنا لكن أنا قلنا بريك ومسينا ورنينا أصحاب حنون ورادي مس وحياة وكلكم مشغولوا ونفتي سكون مشغولين ما دام ونكانوا كدريمين النحريس يفهم إلا فهماي because واحد عيشة هدي الجولة ما ترى مس هدي أود الجوشة غير ما ترى أود وجراعة هذا واحد سميس لها مسميها يقولوا موضوع مس تهديد كالصعود inaagin ka socdo maanta xasuusinta maanta cunugii la xasuusinaa waxa igraacitaanka badan waxa waa adrar badan ay leeyihiin dhibaatooyin badan ay leeyihiin in iska ilaalino way mid ugu dambayso afraad waxa waay in marka wax ka dalbanee adiga koodi nervous tahay body language kaagi aadan ka waalid ahaan body language kaagi oo kacsan yahay صيغة السؤال طريقة السؤال كأويديني طريقة خلفسن تاي مسخ أريك كو سميسي هاي تاي عنق مركا وحويدي سنة وحا مهمة إنا عنق ريلاكس تون كاجي عد كاجي عد يرو أو معان وريلاكس أو عنق نحريس كو دريمة أو عنق سأويديني طريقة أويديني طريقة هبيسن أو نحريس كو سميسن تاي طريقة سأسهل عنق إنه كلها ها أو كلها because وكاحشونا بطريقة أسو استعمال شيء إن حريص دحدينا تالا إيو relationship كيسة أو wax kasta uga weyn laakiin haddii طريقة weyn waryaa kan inta ka qaad like I can't pretend example wow I try to example iguma soo dhaco but laakiin waxaa arkaa ka Soomaali ahaaska dad adeegaas askaga soo barani طريقada aan ilmaha wax weydiinayna aska khaleefsan cunugii maskaxdiisa xireeba marka uu khalifaadaas wax ku weydiisid cunugii قم أثناء خلفات وجوابا خلفات وحين غنيسة مدح عليك continuous مدح عليك إنه وحسامين كسامين لهذا هذيك طريقة هذيك وحقوي دينه أو حركة بدل هاد هذا دجن عدكاجي أو عنق أوكي هدو إديده كنت لقى العنق مركز أو حوي دينه عنق وإنه كنت لقى شاء إنه عنق كود ذكره سامرك أولم what is your next محاكود يا سنة أكو سي بدل مركو عنق كود mase ugu hortagay se jawiga ugu haye inay ugu diyaarno in cunugaas uu ku maqlo ugu hortagay in diiditaanka in laga hortagaa fiican in wax cunuga uu diidayo ku dhacdo mar walba ma fiicno marka waxaan ka hadlaynaa next video waxyaabaha looga hortagi karo mise waxyaabaha lagu caawi karo ilmaha aan madax adag because ilmaha madax adag waan before dabiicooyinkii sagaalada aan soo dareesnay dabiicooyinkaasna oo xasuusnaa cunug walba dabiicadiisa cunug walba unique nimadiisa marka cilmiga ilmaha la hadlay oo wax ka bedelay dabiicooyinkooda insha Allah laakiin videoga dambe waxa xoog saarayna sida aan ku caawin lahayn anagoon wax garaacin anagoon naagin sameynin anagoon emotionally or verbally abuse aan sameynin maanta afka ilmaha aan wax ka sheegin mise aan tahdiid aan ku sameynin mise ayaga aan wax ka sheegin dabaala tahay saana tahay doqona tahay waxa loo sameyn weysay maanta dhan adaa saane cunugii aan bahdilin afka aan aan ka verbalkaas abuse aan ku sameynin anagoon sameyn insha Allah anagoo degan oo body language keena iyo طريقة سؤال عن ويدينين عن درسني أمرك الله هالبقرين المها ما شاء الله مدح علينا الله نو داوي أنا قدرن الله نو قرب كنا قالوا it's okay مدح علينا okay نقنو accept قرينه وإن المها مدح كان عين so what المواي we need to be the difference أنا قال leader أحتاج إسبدلها إسبدل كوبهن أنا هو 80% أنا قدرت كان والدين تمر كان شقينا أو therapy أو سمين وحنها 80% وأنا جو بحاول والد كحوج سارة والدك مركو إسبدله عنق النتيجة لقى أركا عنق النتيجة وحي كسب بحذا والدك مركو إسبدل لكن أديك داربتينا سد هذه أهدد عنق لكن واحد بدك شد it's very difficult إن الله أرك نتيجة so أنا قاعد أسكب لونه أنا قاعد دراسينه
anaga aan si fiican nafteena aan la fadhiisano waxyaabahana daba socdo haddii maantana ilmaheena aan naagaraynoono haddii maantana ilmaheena aan garaacitaan kale ay islaaxeena tahay mise tahdiidka islaaxeena yahay waxaan ka bedelno maxaa rabtaa inaad iska bedeshid ka waalid maxaa rabtaa inaad iska bedeshid maxaa kuu shaqaynooyo maxaana kuu shaqaynoonin maxaana rabtaa inaa wax ka bedeshid ilmahaagisa adiga u caawisid adoon isbedel sameynin isbedel ilaahay dadka ma bedelo anagoon isbedelin ويغير الله بقوم حتى يغيروا بأنفسهم آية سو إن أنا أسبدل الإيمان واي إلهي قرب كنا قالوا جزاكم الله خير جايز شير قريه ده فيديو كيشين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته